dugsoon tahayba taariikh 8 bisha labaad aan iska casilay shaqadii aan hayay oo ahayd la taliyaha wasiirka maaliyadda anoo markii kala tilinayay waxyaabaha la yiraahdo World Bank portfolio amisa barnaamijyada World Bank waana run saas sheegtay wajar waxay ugu dambeysay bisha 10 October markii qoyska hoose aan u dhigtay Google ay soo qadeen kadibna beesha dugoodii ay soo qadeen marka hadda baayo siyaasadii runtii la gudagali hayaa marka waa jirtaa support fara badan oo soo wici hayo waxaan ugu darnay maanimi hadda la soo dhaafay oo maaragtay weydiinayo war xagee ku maqan tahay iyo warba suuq la geliyo waxyaabo maaragtay kursiyaad keenaysa iyo waxaas hadda waqtigeeda la joogaa oo propaganda uu iska badanaya siyaaso waxa ugu weyn oo suuay waxa weeye horta in la ogaado yaa kula tartami hayo yaa kale oo macnaha soo haweystay gabadhanimadii ilaa haddana dad baawan goola dhigan hayo maaragtay aan si cusboonaysiin hayaan maxaa la yiraahdaa endorsementskii waxyaabihii marka waxaan u sheegayaa Roger warkan suuq lagu wado wax ka jira ma laho insha Allah ta'ala been hadda maaragtay la sheegay oo hebel waa tartamay ma tartamay la yiraahdeen waxay ku dhamaanaysaa mar dhow waxaba la galayaa waqtigii la soo qaadanay party nominationska oo lagu soo daawacay joornaalaha nin walba oo taagan iyo xisbigii uu ku taagnaa insha Allah hadda waxa weyn oo sugahay waxa weeyaan intaan wajar aadin jimcihii iyo sabtigi waxa soo socda shirweynihii ODM ay lahayd oo lagu soo qaaday Raila Odinga in uu noqdo musharaxa u tartamaya madaxweynimada Kenya waxaan noqon doontaa taariikh 25 iyo taariikh 26 oo bishan oo February marka kadib ana wajar soo insha Allah taala oo bulshada la hadli doono oo hadde bandhigi doona agendadaydii aan u lahaa gobernimada wajeer iyo bulshada wajeer wixii aan rabo insha Allah in aan u qabto 5 sano oo soo socdo bidnina aniga gabar ayaan u taaganahay xisbi la yiraahdo ODM ayaan ku taaganahay oo u jooga maaragtay wajeer county oo maaragtay aan rabo inaan ku xoojiyo xisbigana in la lugooyo oo musharaxiin aan tartanka waxba ku lahayn lagu beeriyo maaha inkasto oo line-upka marxaladda ku dhigto waxay keenaysaa in dad ku wada dhisayaan amase madaxweynaha kula wada dhisayaan ay isku qabsadaan maxaa la yiraahdaa xisbigi sidii ku kala lixin lahayn ayaan kulli isku daynaa sheekadan azimiyo say ku tartami madaxweynaha isoo dhisi dadaal ay ka imaan doontaa haddase annaga waxaan rabnaa in aan u helno musharaxiin aad iyo aad u culus xisbiga la yiraahdo ODM oo guriga weyn oo la yiraahdo azimiyo haddana ka sii qolkii aad ka soo jeeday madaxweynaha azimiyo oo asaga xisbiga asaga khaas u ah tawata waxaad ka hadashay su'aasha oo line-upkii aniga waxaan aaminsanahay wajeer la isku leeyahay siyaasad la isdhex maraayo oo isku dhex dhafan oo governorga hadduu qoyskan ka soo jeedo senatorga qoyska aad ka soo jeedo deputyga qoyska aad ka soo jeedo inta badan waxaan arki jirnay uma rabta aydan inkastoo xisbiyaal kala gali doono inuu gabdhaha ay ku tartamaan marka mar dhow ayaan soo bandhigi doonaa macnaha line-upkaasi oo deputy qafkii aan ka rabo insha Allah iyo senator qafkii aan wax ku darsanayo
mar dhow ayaan soo bandhigi doonaa wada hadalaha ii socda waxay u badan yihiin line-upkaasi oo yaa deputy noqonaya iyo senator noqonaya wada hadalaha aan meel ku simi haya oo ilaa hadda maaragtay aan ka hadli hayna waa ka wada hadal kale oo hadda ii socda male hadda fadhi ku-dirirka waa la isugu imaadaa waana laga hadlaa siyasada wax kaloo laga hadlaya male musharaxiin fara badan oon isu nimaadno oo fadhi ku-dirirka la isugu imaado waa jiraan oo warri hadda maaragtay anay ku habboon ay ku habboon tahay safartaani anigaaba 5 sano campaign kusoo jiro 5 kii dhiman tahay iska kee dhaaf waa la isugu imaado la isku kaftamaya lamana kala xirno laakiin wax wada hadal ah oo musharax kale oo hadda governor soo sheegtay iiga tanaasul ad igu imaaday amise aan ugu tagay ilaa hadda ma jirto waxaan u sheegayaa Roger insha Allah taala line up xoog leh oo ku qancaan ayaan u soo wadnaa dad maaragtay nadiif ah oo maxaa la yiraahdaa ayto oo maaragtay ogaanayaan in hadda isqabsadaan wajeer ma soo bixin karaan insha Allah taala oo wajeertii 2013-17 ku soo celinaysa ama ka wasi fiicanba inaan u keenin insha Allah taala wajeer isku leeyahay oo siyaasadda si isku dhafan loo raadinayo agenda loo hayo oo qaladaankii dhacay 5 sano oo maamul xumada runtii lagu saxayo oo sida ugu dhaqso badan loogu saxayo ayaan u soo wadnaa insha Allah taala aan sameeyay aniga sida aan sheegay shakhsiyan waxaan insha Allah taala u soo wajeer markii uu dhamaado NDC-gan oo toddobaadkan dhamaashadiisi inoo dhamaanayo toddobaadka kale ana wajeer u soo insha Allah taala oo la kulmaya waxyaalo muhiim ah maaragtay bandhigi doono ajendayaasha aan u soo wada wajeer musharaxa azimiyona insha Allah taala mar dhow wuu imaani taariikh loo hadina ku dhaha marrabi laakiin mar dhow wuu imaani bisha saddexaadna waxaan meel ku sameynaa insha Allah taala waxyaabo ugu muhiimsan in dadkii ku tartamayay line-upkaasi ODM iyo kuwii kale maaragtay oo haddii ODM-ta aan u wayno xisbiyaha kale oo affiliate-ka aan kala gelin lahayn oo na taageeraya in aan maaragtay ku kala badbaadino xisbiyadii oo sidii maaragtay qof walbaba qof aan ka tagna aysan jirin oo na taageersan ku walba oo fursad aad ku tartama leh aan meel u gelino ayaan hadda maaragtay noogu weyn oo ka shaqeynaynaa oo xafiiskaana hadda maaragtay aan ugu shaqeynaynaa oo u furan yahay insha Allah taala taariikhda uu imaanaya musharaxana waan kulli soo bandhigaynaa ma dhowin laakiin aniga si hormaray oo socdo wajeer toddobaadkan soo socda insha Allah election khair aan ugu gaarsiiyo insha Allah wajeer ma aha election marka dhacay kadib in aan shalayno maamul xumada in aan ka shalayno markii aan codka ridna kadib maaha waqtigii haddii qof walba aad saliid isu soo marinayay oo bulshada u imaanayay oo run iyo been qof walba wax ku raadinay ayaa la joogaa aniga shakhsi ahaan aad uguma badiye la yarida propagandan faraha badan oo liin jeedina wax ka jira malaho walaalayaal idinkoo dhimirkiina qabtaan oona arkay wajeer shantii hore wixii ay ahayd shantaanna wixii ay soo martay oo haddaba mari haysa idinkoo arkay in aad maaragtay waddankii u hilisaan inoo codeysaan xisbiga ODM u codeysaan Axmed Jiir aad soo celisaan aniga ma aha qofkii dhahay wajeer waa Axmed Jiir dad kulli supporters oo fans oo qaarkood hata aan aqaanin ku farxay kaliya shaqadii aan qabtay ayaa ii bixiyay wajeer waa Axmed Jiir in aad maaragtay soo doorataan mar kale oo waddankii aan maaragtay waddan ka dhigno oo shaqeynayo
waxyaabaha aan maanta ka xumahay runtii shaqaalaha county-na ogyihiin waxaa weeyaan 300 milyan oo xaqi shaqaalaha reer Wajeer ay lahayeen la yiraahdo pension looma gudbinin kambunigi maamulay hay'adii maamuleysay shaqaalaha lacagtu waa laga jaraa markii laga jarana looma gudbiyo kambunigi maamulay ninkii maanta shaqo ka baxo umrigiisa aad gaar lacag looma hayo aad sheegtay wasiiraha county-ga ta gratuity looma hayo maanta shaqo ka baxan waxaan wax maaragtay anaga hatta wax laga hadli jirayba ma aha pension ma la gudbiya gratuity ma la gudbiya deductions ka shaqaalaha maaragtay laga jara ku deyma iyo waxan qaateen oo mishaarkooda ha laga jara dhahay ma la gudbiya wax la isiga maan jiray ma leh wax maaragtay ma laga hadli jiray wax allowance shaqaalaha qaf shaqaalo shaqadiisa soo qabtay laga hadli jiray abaara xun ay wadanka jiro abaara xun ay wadanka jiro dadki biyo u baahan yihiin dadki waxay u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin dadki waxay u baahan yihiin xoolihii in loo badbaadiyo oo raashin loo soo gado maaragtay dadki beeralayda masaakiinta oo maxal yiraahdo ayto cawska magaalada korkiisa ka gato ka samaysto ka abuurto in laga gato oo wixii la gaarsiin kar la gaarsiiyo loo baahan yahay marka waxaan u sheegayaa Wajeer wadankii hadduu shaqeeyo wadan shaqeeyna uu noqdo county-ga hadduu shaqeeyo county qaf walba u shaqeynaa ayuu noqonay county hadduu dumana cid walba waa ka dumayaan walaalayaal fursad aad leedihiin aan ku saxno wixii 5 sano maaragtay wadankan qabsaday oo county-gan qabsaday oo maamul xumo ay keentay qaf walba waad aqaantaan waxa la yiri amis ugu gado amis aqoon gado qaf mas'uul soo qabtay oo Wajeer ay ka saydin male waxaan dhihi lahaa wadanka u heliya isu heliya inoo heliya na soo doorto bilaa karin